Maydka hooyadeed ayay ku ag hurday hal saac intaan la duugin ka hor. Intay hurdaysana waxaa dhacday arrin cajiib. Laakiin daawade, haddii aad nagu cusubtahay waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe dhahdo, gambalaalkana aad u furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada halkan aan soo gelino. Isla markaas, tani waa sheekada gabar dhalinyaraysay kadibna ka qoomamaysay dembigeeda. Waxay leedahay gabadhaanu aabbahay wuxuu ahaa mid safar badan oo ka shaqeeya dabadda wuxuuna na soo booqan jiray maalmo yar. Laakiin hooyaday waxay ahayd mid guriga nagu tarbiyeysa oo ka shaqaysa inay na hagaajiso. Waxay ku bilaabatay sheekada gabadhaanu markii ay weynaatay oo ay noqotay gabar dhalinyaro ah. Waxay dhiga jirtay madarase ka fog gurigeeda. Waxay ahayd mid iska baxda oo waxa ay doonto xirata. Lama kontarooli jirin. Aabba wax weydiinayana ma jirin, hooyo ciqaabaydana ma jirin. Waxayna hilmaantay inuusan Ilaahay waxba hilmaanin kana jaahil ahayn. Waxay isbarteen wiil dhalinyaro oo aan waxbarashada u jajabnayn oo dalxiiska ka jecel waxbarashada. Wiilkan ayaana ahaa mid wuxuu doono iska sameeya. Wuxuu nafsadiisa ku yiri maxay ahayd gabadhan? Way qurux badan tahay waxayna ku wanaagsan tahay saaxiibtinimada. Waxay bilowday inay la qosasho oo ay la socoto kadibna waxay noqdeen saaxiibo. Waxay bilaabeen inay mar kastaba xariiraan ayna isku naxariistaan. Waxaana dhexdooda ka dhalatay qiso jacayl oo xaraam ah. Maxaa yeelay kama dhaxayn xiriir guur. Ehelkiisuna ma oga waxna kama garanayaan xiriirkan xaraamta ah. Wiilkan iyo gabadhan ayaa ahaayeen inay ku kulmaan wadooyinka iyo meelaha dalxiiska iyo goobaha kale. Xilliyada ka mid ah ayaa waxaa ogaaday gabadha deriskooda. Wayna soo degdegtay si ay ugu sheegto hooyadeed. Markii hooyadii ogaatay ayay la hadashay gabadheeda. Waxayna ugu hanjabtay haddii aysan wiilkan xiriirka u jarin inaysan mar dambe guriga ka bixi doonin. Gabadha ayaa soo carartay wiilkii ayayna u tagtay waxayna u sheegtay dhammaan wixii dhacay. Wiilkii ayaa ku jawaabay, aniga ayaa kule, cid kalena kuma lahaanayso weligaa. Aniga hooyadaada ayaan la hadlayaa, hortaada ayaana kugu weydiisanayaa. Anigu waxaan ahay nin, waanan qaadi karaa mas'uuliyad. Wiilkii ayaa hooyadii gabadha dhashay u tagay wuuna weydiistay. Si xushmad leh ayuuna u qanciyay hooyada. Hooyadii ayaa farxday waxayna tiri gabadheeda wuxuu la rabaa wanaag ee dhib lama uu rabo. Hooyada ayaa raadisay si ay wiilkan wax uga ogaato akhlaaqdiisa, laakiin dadku waxay u sheegeen inay iska ilaalido oo uusan marna wanaagsanayn wuxuuna cabaa khamriga iyo xaraamta xumaan ayuuna gabdhaha la sameeyaa. Waana mid aysan sumcadiisu wanaagsanayn. Hooyada ayaa gabadheeda u yeertay waxayna u sheegtay xaqiiqada wiilkan. Laakiin gabadha saaxiibkeed wuxuu ahaa mid aan samrayn. Gabadha ayaa tiri wuxuu doono ha sameeyo. Laakiin muhiimaddu waxay tahay inuu i jecel yahay oo aniga uu i xifdinayo. Aniga ayaana bedelaya oo ka dhigaya qof wanaagsan. Hooyadii ayaa ku fashilantay inay gabadhii qanciso. Gabadha wiilka ayay u tagtay waxayna u sheegtay wax kasta. Wiilka ayaa ugu jawaabay gabadha waan isguursanaynaa aniga adigu. Waanan ku daryeeli doonaa sida aad jeceshahay. Way ku waafaqday gabadhii wayna ku qanacday fikradiisa. Waxayna isu guursadeen si hoose. Haddii aad muuqaalka weli daawanaydo channelkan aad subscribe saarin waxaan ku xasuusinayaa inaad channelka subscribe saarto gambalaalkana aad furato. Muuqaalkana like saar oo sii share garay. La soco qaybta labaad.